السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن مالي وناكسن سيدو كلا كلانتي وناكسن كنا سو دواad barnaamijkeena wargeysyada buuga caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sports ugu dambeeyay fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xiran muuqaalka noo share gareeya waana ku mahadsantihiin sida wanaag ku dhaha markas noola falgashiin maanta waa maalintii xulkeena Soomaaliya ciyaaraan Ocean Stars sadartay wargeysyada meelan dhiganina waxa markood ku bilaabanaa si kooban xulkeena Soomaaliya wajaha xulka Iswatiiniya waxyaabaha laga rabo inay sameeyaan si u guuleystaan macluumaadka labadan xul ka dhaxeeyo iyo kulanka muxuu yahay diyaar garow xulkeena Soomaaliya ka warqabnay iyo sidoo kale madasha dhankaasi Tanzania inay joogan ciyaartan Iswatiiniya la ciyaara waqti ahaan waxay bilaaban doontaa afarta garanimo ee xilliga Geeska Afrika daawadayaasha qiimaha badan xulkeena Soomaaliya kulankan ciyaaraan waa kulan caalami ah kana tirsan Israel koobka qaramada Afrika waa play-off xulka Soomaaliya Iswatiiniya laba kulan ka dhaxeeya midkii labadaas koox natiijo fiican oo guuleysto ayaa u soo bixi doona Israelka tooska loo gali doona koobka qaramada Afrika sanadka dambe amarti galna Ivory Coast group stage la gali doona hadii koox shaqada ay bilaaban doonto preparation xulka Soomaaliya markii aan firin inkastoo uu iska yaray darwafo kala duwan la soo maray dhanka hoggaanka dabcan xiriirka xataa markii la fiiriyo culays badan ee ka jireen ugu dambeyntii loo guuleysto hoggaan cusub xiriirka inuu yeesho sidoo kale tan shaqadii xulka aysan istaagin la sii waday taas waa arrin positive in ciyaartoydii iyo sidoo kale abaabulkii macallimiinta iyo raggii wadeenba iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta waxay ku amaaneen shaqada marnaba inaysan hakanin oo haatan la isugu tagay dhankaasi Tanzania sidoo kale ay soo gashay laba kulan preparation in la ciyaaro saaxiibtinimo kooxaha Tanzania ka dhisan la ciyaaro kulan barbardhac iyo kulan guuldaro ee la kulmeen taas oo macallin ka caawin karto inuu fahmi karo foomka ciyaartoyda waqti fiican ku jiraan kuwa u haboon gudaha garoonka inay galaan iyo qaabku adeegsan lahaa marka labadaas kulan waxay ka caawiyeen xulka Soomaaliya isla diyaar garowga Iswatiiniya in boqolkiiba boqol perfect uu noqdo dhinaca kale markii la fiiriyo xulka kubadda cagta Soomaaliya kulan rasmi ciyaaran waxa ugu dambeeyay Juuntii sanadka hore koobkii dabcan loo yaqaan Arab Cup ama FIFA Arab Cup oo lagu ciyaaro gudaha Qatar ciyaartii play-offka group stage lagu soo baxay nasiib daro Camaan laba gool iyo hal nooga badiyeen wixii markaas ka dambeeyay xulka Soomaaliya ciyaarmaba aysan ciyaarin horyaalkii xataa ay xaalado kala duwan waxa la galay dabcan waxa jirta xaalad cakiran hopefully waxaas oo dhan waan ka soo baxnay haddana waxaan guda jirnaa maanta diilada hamigan aad inuu u saray inaan ka badin karno xulka Iswatiiniya kulanka bilaaban doona afarta garanimo xilliga Geeska Afrika ciyaartoyda caalamiga xulka matalaya sida dabcan newska makhbaraadkan ku xiran inta badan boqolkiiba boqol waa fid kulankan way ka qayb qaadan karaan waxaan halkaan si toos dabcan ugu mahad celinayaa Cabdishiid Maxamed Nuur Shardinho oo wariye Soomaaliyeed arrimaha Soomaalida isku xil saaray sidoo kale tan aad iyo aad social media ugu soo gudbiyo akhbaaraadka xulka marka hadii uusan Shardinho ahaan lahayn maba aysan noo suurtagelin inaan helno update xulalka iyo xaaladda ay ku sugay marka Shardinho aad u mahadsantahay shaqada noo haysan halkaas ka sii wadan dabcan ilaa maadaama ninkaas shaqo culus oo haya xulkeena Soomaaliya dabcan si caalami update uu naga sii warbixin kasto ku aadan oo page-kiisa marka qofka wax wanaag haya oo wanaag naga dhaxay comment hayna waa lagu dhiirigeliyaa marka aan u soo laabto xulkeena Soomaaliya todobada kulan ugu dambeysay ciyaaraha caalamiga ciyaaraan daawadayaasha qiimo badan afar kulan oo kamid lagama badin waa good news oo kaleeto saddex barbardhac galeen kulan ay guuleystaan inkastoo saddex kulan laga badiyay haddana tan waxay muujinaysaa xulka wax badan inuu iska bedelay oo ciyaartan wax fiican laga filan karo dhinaca kale markii la fiiriyo xulkan u baxeen Iswatiiniya ayagana waxay ku jiraan foomkooda ugu fiican ogaada tartanka loo yaqaan COSAFA Cup ay meel fiican ka gaareen sidoo kale tan xulkan waxa uu diiwaan gashan shanta kulan ugu dambeysay ciyaarna laba kulan kamid ah guuleysteen laba kulan waa laga badiyay kulan barbardhac galeen sidoo kale qiimeynta xulalka markii la fiiriyo Iswatiiniya waa naga fiican FIFA ranking waxay kaga jiraan kaalinta 147 anagana waxaan kaga jirnaa kaalinta 194 taasi kama dhigna marka in natiijo aan naga fiican sababtoo Soomaaliya xulalka fiican Iswatiiniya la ciyaaran sida Cumaan oo kale markii la fiiriyo Israelkii aan ciyaarna Zimbabwe la ciyaarno kale kulamadaas oo performance ee xulka Soomaaliya sameeyay hadii ay joogtaan waxaan kalsooni badan ku qabaa in Iswatiiniya dabcan gadaal la marsiin karo ciyaarta ma noqon doonto maanta lagu ciyaara Tanzania home match ka ee madash ugu dambeysay lagu kala bixi doono waxa jiri doonta 4 maalmood kadib ama 27 bisha Maarso in mar kale dabcan dhankaas Iswatiiniya la tagi doono si kulanka final kala baxnaaga loo ciyaaro marka waxaan rajaynayaa natiijo fiican labadaba in helna si aan u soo baxno ugu dambeyntii waxa u mahad celinaynaa sidoo kale dalka Tanzania oo namarti sooreen noo ogolaadeen preparation ku sameeyay garoomadooda noo ogolaadeen garoonkooda home match inuu noqdo sidoo kale si wanaagsan noo marti sooran iyo xitaa marka la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan safaarada Tanzania ee dalkana Soomaaliya kulli ayagana kaalin fiican ay qaateen marka overall qof kasta oo juhdi galiyo sidoo xulka maanta kulanka inuu ciyaar uu suura gasho halkaana kaga mahad celinina xitaa waxa jira dad kala duwan oo fara badan oo qaaradaha kala duwan caalamka imaanaysa ee xulkeen u garab istaagaan marka guulaha xulkeen u rajeynaa insha Allah hopefully ka helno wax